بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إخوة الحق والإيمان، waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan sidaan ciwaanka ku qoray ninka la yidhaahda Abiy Ahmed oo ah ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia baa wuxuu booqday sidaan la soconno wiigii lasoo dhaafay gobolka Soomaalida, gaar ahaan magaalada caasimadda oo Jigjiga booqday. meeshaasna waa lagu soo dhaweeyay sida iska caadiga ah. sida ciwaanka aad ka muuqdana waxaa lagu soo dhaweeyay, waxyaabihii lagu soo dhaweeyay waxaa ka mid ahaa gabdho inay soo dhaweeyaan, gabdho Soomaaliyeed oo malaha la soo xulay oo showlaysidii waa kuwii uun ugu bidhaan roonaa dadka meelaha jooga sida ayagu islahaayeen. waa saan dareensanahay baa lagu soo dhaweeyay. markii lagu soo dhaweeyayna kolley ninkaas ra-iisul wasaaraha Ethiopia ah iyo gabdhihii oo labiskoodu uu aad u liito oo dhar khafiif ah oo iska qaawani ah wata, iyo asagii oo ku dhagan ama salaamahaya ama garabka haysta baa goobaha miidiyaha lagu xiriiray la soo geliyay. intaa markay dhacday, marka anigu waxaan ka mid ahaa dad ka qaar ka hadlay arrintaas oo ooga hadlay si markii aanu arkay inay iska baraarujin iyo nasteexa ay tahay in waxyaabaha noocaas oo kale aysan fiicnayn. kadibna dadka qaar ka mida khaladaad bay ka fahmeen. waxaan rabaa marka waqti badan ma haysto, waqtigaan haysto dhan wuu kooban yahay. waxaan rabaa inaan 15 daqiiqo bisaan ku jiri doonaa halkan hadda laga bilaabo xilligan. waxaan rajaynayaa in dadkoo dhan dee mowduucan la danayn doono oo aad la wadaagi doontaan dadka saaxiibadiin iyo idinku jira Facebook aad share garayn doontaan. waxaan rabaa marka koowaad inaan 3 qodob aan ka dhawaajiyo intaana arrinta guda gelinba. qodobka koowaad waxa weeye waxa khaldan ama shakhsi uu khaldo ama dowlad ay khalado ama qabiil uu khaldo ama urur uu khaldo, bini aadamkaas ilaahay ee muslimiinta gaar ahaan wixii khaldama oo khalad loo arko in laga hadlo oo la saxo waa waajib dhammaanteen ina saaran. waajib dhammaanteen ina saaran weeye. gaar ahaan qofkii wax u bilaaban yihiin oo markaas diinta iyo dacwada ku dhex jira, waa waajib gaar u sii saaran inuu ka hadlo oo uu baraarujiyo. arrintaasi waa lagama maarmaan. haddii cid wax laga weydiinna ma jirto oo laga baryay, ee qof walba ilaahay intuu waafajiyo hadli. asluubka iyo sida wax loo jeedinayana way kala duwanaan karaan, aragtiduna way kala duwan tahay ficlan. marka annaga waxaana saaran, haddaan dad muslimiina nahay, haddaan dad dacwo iyo diin sheeganaya nahay oo ku dhex jira, inaan wixii khaldan ee gaar ahaan dadkeena ka khaldan, weliba siiba qofku meesha uu ka soo jeedo deegaan ahaan ka khaldan, inuu caddeeyaa lagama maarmaana. marka aniga deegaan ahaan gobolkaasaan kasoo jeedaa, si gaara xogtiisa waan hayaa. wax igaga qarsoon haba yaraatee ma laha. shacabka caadigaan la xidhiidhaa, xukuumadda laftigeedaan la xidhiidhaa, ehelkii iyo asxaabtii iyo qaraabadiiba joogta. taakaan ugu horhaya. marka inaan wixii khaldan aan saxno
وواجب شرعي عقلي عرفي عد لوغه هبيسن ما اي جرتو horeyna uma dhici jirin cid looga hibaysan ma jirto hada adu ku raali noqotay hadii aad ay ku dhibtaba waa hawl kale laakiin anagu inaan sida aanu aragna saxda aan sheegno waa waajib weey ama asluubtan adeegsanayna wada fiican inaan u maro waa sida xikmadda sharcigu ay tilmaamayso bil hikmati wal maw'idati al hasana in qofka lagu waaniyo ayada waa wax kale laakiin waxa khaladka in la sheego weey sida saxda ah la tilmaamo taa macnaheedu ma aha inaad dawladda mucaaradsan tahay marka Soomaalidu waa dad aad runtii intooda badan u dhintay oo qabiil iyo qabyaalad dilay oo urur iyo gruubaysi oo san waxba ka soo reebin waxaan xusuustaa markii farmaajo la doortay qasab anu dadkii taageeray baan kamid ahaa taageersanaana kuwa waxay igu eedeynayeen inaan qabiil ahaan u taageerayo meesha laga soo bilaabay fiiriya inaan qabiil ahaan u taageerayo Mustafa markii la doortay kuwa waxay igu eedeynayeen inaan qabiil ahaan u taageerayo way soconaysaa baashan ku habeen iga sii dhow hadii la doortana way sii soconaysaa bal reerka labada bohood ee aabuhu ilmuhu wada dhalay bay Soomaalidu kala xigsanayaan waa basal marka sii soconaysa waxaan rabaa laakiin aan sheego waxaan aniga shakhsiyan wax ku qiimeynayo dhinaca siyaasadda muhiim ima aha iyo gobolada iyo hebel baa wax la siiyay iyo maamul baa la dhisay iyo waxaas oo dhan wax weyn uma arko waxaan wax weyn u arko waxa weeye jaanibka diiniga wixii khuseeyo weey dhinaca diinta wixii khuseeyo haddaba haddii khalad uu dhaco waa la sixi haddii la saxana macnaheedu ma aha mucaaradnimo dadku inay bislaadaan baa la rabaa oo ay dareemaan oo waxa khaldan marka lagu sheego qofku wuxuu rabo asagu ha ula jeedaba ilaahu muuba qabyaaladaysan noqdo muu urur ka socdo muu dan kala lahaado adiga waxaas dhan waxba kaama gelin khaladka la sheegaya ma dhacay wuu dhacay ma jira wuu jira inaad saxdaad u baahan tahay bis arrinta inaad isla ogaano qodobka labaad asagana muhiimka waxa weeye goobta qof aan joogin kuwa laba arkay sheekh meesha ma joogtide ma u kaadisi dadka meesha qasab ma aha meesha ado inaad joogto markaad ka hadlayso way dhici kartaa dadka jooga inay nooga xog ugalsan yihiin laakiin anaguna xog badan baan ka haynaa mana jirto caqli iyo cilmi tilmaamaya meel aad joogina ka hadlin wali mayna maqlo nagu cusub tahay arrimaha ayadan in la baraarujiyo mudan baa waxay tahay hadalka qofku uu dhaho ama uu yiraahdo waa in aan dhinac kale loo leexinin oo la fasirin inta markaan ka tago hordhaca waxaan rabaa inaan dhaho waxa dhacday waa kay maalin dhaweyto xisbigii deegaanka ka jiray doorasho ay galeen doorashadaas oo lagu dooranayay xubnihii golaha fulinta ama guddida fulinta iyo xubnihii golaha dhexe magacii xisbigana waa kii la bedelay inta markay dhacday ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed baa wuxuu kasoo duulay Addis Ababa kolay wali waxaan inaga marnayna qof walba la rabaa inuu ogaado in kor la inaga haystay iyo in wax la inoo yeeriyo iyo in la ina tilmaami iyo in tala la ina siiyay iyo in waxa ka leexda la ina dhihi iyo wali meena ka gudbino deegaanku Itoobiya hoostaga sida daraadeed uu yimaaday waxyaabaha kale oo dhan waxba igama khuseeyo waxyaabaha dhacan marka raba inaan sheego waa la soo dhaweeyay ninka hadii la soo dhaweeyay dhib ma ahan oo maxay yeelay waana ninkii wadanka maamulayay oo uu inoo taliyaa wali oo de aqliga caadiga markii uu shaqeynayo waaqica dhabtaana laga hadlayo wali Itoobiya dalka haysta marka uu yimaaday wala in la soo dhaweeyay xaq baynu ugu leeyahay maxay yeelay daris baynu nahay dawlad baynu wadaagnaa dan baa inaga dhaxaysa martibu inoo yahay waxaas oo dhan dhib ma laha waxa lagu soo dhaweeyay laakiin gabdha lagu soo dhaweeyay magaalada la galay qasab qayb protocolka la yiraahdo ka shaqeysay soo dhaweynta waxan magaalada la galay kulli aanu laba gabdhood baan arkay sawirkooda aad isugu eeg show gabdhihii uu lahaa deegaanka way ugu yar bidhaan roon yihiin baa la keenay ayagana soo dhaweeyay
tafaasiisha hoose inaan gala ma raba laakiin inta aynu arkaynay qofba aan ka qarsoonayn waxay ahaayeen gabdho Soomaaliyeed oo aad u soo labistay dhar khafiifana wata oo jidhkoodu uu muuqdo in lagu soo dhaweeyay Abiy Ahmed Amar ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo uu garbaha haystay ay luqunta isdhaafsanayeen meelaha qaar ka mid ah ayadoo midood ay dhagta wax ugu sheegayso asagoo gaariga sii galaya sawirkaas ama picturekaas la soo diray muuqaalka marka nooca ah ma waxaa jira qof Soomaali ah oo muslim ah oo damiir leh oo dadnimo leh oo dhaqan leh oo danqasho leh oo raganimo ku jirto oo ku raali noqonaya jira markaanu sida saxda u hadlayno Itoobiya wadankan weligeed bay soo haysatay maamuladeedii kala duwanaa Tigreeg waxa ugu dambeeyaan gabdho badan bay xoog inaga kufsadeenba qasab ku laayeenba wax isweydiiyay ma laha waxbana meena u qaban karin tabarteena halka ahayd kuwa aan laynagu qasbin inagu inaan marka u hadiyeyno oo aanu soo labisno oo soo xullo oo madaxtooyada ugu keeno oo airportka ku qaabilaan oo sii sabootiyaan oo sawirro la galaan dhaqanka nooca muxuu yahay waxaan la yaabanayn oo runtii aan ka xishoonaynay oo aan inaan meeshaba sheegan weynaba gebigeedaba oon ka xishoonnayba inaan gobolkaabaan kasoo jeednaaba dhahno dhaqamadii qaarkood uu samayn jiray cabdi oo kale ay ka mid ahaayeen dad lagu leeyahay xoolaan u tagay iyo neef baan waxeeyey iyo sac iyo amase xar baan sidaa u tagay dheh dhaantadii iyo fisqigii deegaanka loo kala qaybinayay baan la yaabanay maanta marka Mustafa inuu asaguna wadadii maro oo sidii uu yeelo oo uu dhaqan Soomaaliyeed baan soo celin buu lahaa labiskii Soomaalidu xidhay oo muuqaalkii Soomaalidu u socday oo afkii Soomaaligu ku hadlayay oo calankii Soomaaliya iyo midabkiisii iyo xidigtii u soo celiyay oo xisbigu hadda magacii ka bedelay oo maxaan ku iraahday Soomaali baan nahay buu yiri Soomaali waa mid magaca Soomaaliyeed buu u socday waxaas oo dhan waa wax fiican oo waxaan ku taageersanayn ku daba socono way laakiin ninkan ra'iisul wasaaraha ah in gabdha lagu martiqaado ay soo dhaweeyaan oo dhar nooca ay qabaan oo waxa ka sii hooseeya waxa ka dambeeyana aanan ogeyn arrin la ogolaan kara ma aha arrintaasi waan ka hadlaynaa fartan ku fiiqaynaa waan tilmaamaynaa waan ka digaynaa waan diidaynaa ma aan yeeli doono cod dheer baan ku dhawaaqaynaa dadka iyo dhaqankooda in la dooriyana ma aan ogelin waxaan u baahannahay marka dawladdu inay dib isu xisaabiso waxaan u baahannahay inay waantowdo oo dhaqanka iyo diinta ay meel kaga dhacaysa ay ka waantowdo baan u baahannahay waxaan u baahannahay madaxweynuhu inuu raaligelin ka bixiyo dhaqanka noocaas ee dhacay uuna soo noqonina haddiiba ay maamul hoosaadkiisa dad ka mid a sameeyeen raalli kuma nihin gabdhahanaga in intii lasoo kaxeeyo oo la qaawiyo oo maxaan ku iraahday lagu soo dhaweeyo oo lagu martiqaado maxaan ku iraahday raalli kuma aanihin marka waxaan rabnaa insha Allah ta'ala fariintan waxaan rajeynayaa way gaari doontaa waan ogahay jigjiga dadka jooga dhageysan doonaan waa qaarkiin way dhibsan doonaan sababta maxay tahay taageerada ay u hayaan dawladda baa dhala'aana dawladda waan wada taageersanahay laakiin waxa khaldan kama aamusayno waan sheegi doonaa weligaan waxaan rajeynayaa arrintaa inay raaligelin madaxweynuhu ka bixiyo dib dambana ayna u dhicin dhaqanka iyo diintana dadka waa in loo ilaaliyo cabdi laba arrimood baa ugu darnaa wixii aan ku haysanay diintii culimadii dii waa kii loo wada xidhay shiica wadankii lagu abuuray midda waan ku haysanay dhaqan xumidii uu la yimidna waan ku haysanay oo dee fisqigii iyo fasaadkii adduun ka jiray wadanka
marka mustafana albaabkii inuu garaacayaad moodaa dadku laakiin waxaa muhiim inaan ogaano way baraarugeen hadda sidii horema adduunku dadku way tooseen way baraarugeen deegaanka soomaalidu sidii maaha etoobiya sidii maaha maca daalika fawdo iyo burbur ma rabno laakiin waxaan rabnaa dhaqankanaga iyo diintanada inaan lagu tumanin ma rabno intaasaan rabay insha allahu tacaala inaan idinla wadaago aad baadna u mahadsantihiin inaad sii gudbisaanna waan rajaynayaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum